dalka Kenya ayaa waxaa xeryaha qaxootiga ku jira oo kaararka aqoonsiga qaxootiga haysta dad gaaraya ilaa iyo 50,000 oo Kenyaan ah. qaxootinimadaasi oo ay duruufo nololeed u geeyeen ayay dadkaasi ku waayeen xuquuqdii muwaadinimo ee Kenya. Haddaba dowladda Kenya ayaa wada qorshe dadkaasi looga soo saarayo qaxootiga oo lagu siinayo sharciyada dalkaasi. wariyaha VOA uga soo warama gobolka waqooyi bari ee Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Gaarisa ka soo diray. ku dhawaad 50,000 oo Kenyaan ah oo galay xeryaha qaxootiga dhadhaab duruufo kala duwan ay u geysatay inay galaan ayaa dib waxay u heli doonaan aqoonsigooda dalkani Kenya. wasaaradda arrimaha gudaha dalkani Kenya ayaa shaacisay in ay sameysay qorshe ay ugu talagashay dadka Kenyaanka ee gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab nolosha ka doontay kana mid noqday dadka qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab in haatan ay dib u heli doonaan aqoonsigooda Kenyaanimada. faraha qaxootiga haatan ay ku jiraan laga saari doono kaararka aqoonsiga qaxootinimo ay haystaan hay'adda qaramada midoobay dalkani Kenya ee qaxootiga u qaabilsan ay dib ugu celin doonaan. waxaana soo dhaweeyay hogaamiyaasha kala duwan ee gobolkan mambax loogu sameeyay garoonka kubadda cagta Gaarisa. waxaa ka hadlay mas'uuliyiinta gobolkan oo ugu sareyso uu hogaaminayay governorka Garissa County Mudane Cali Bunow Qorane. dadka meesha ku jira kulli waa la wada garanay qaran wakiil ha sameeyna dadan hab kulayna soo gelidina nafaaska ha galadina dadka ha dhaafina meesha ka faa'iideysano dadka dhib badan bay soo mareen aan ka faa'iideysano. dowladda waxaan kala weydiinayaa xuduudka ay furto wax laga ballan qaaday mid kale waa ogahay saddex bari la soo dhaafay dadkeena waswaas ba kursiga balbala waa tagay kiilagdeera waa tagay woolki waa tagay nimankan madaxda ma bareegaan wuxuu baa tagay waxaan laga ballan qaaday insha Allah kursi la weyni ama la tiri ama aan la helin ama aan jirinin ma dhici doonto insha Allah. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale mudanaha laga soo doortay degmada Dhadhaab oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in 20 sano in ka badan ay daba socdeen arrimaha noocan oo kala haatan dadkaasi looga baahan yahay si deganaansho ku jirta inay uga qayb qaataan hawshaasi dowladooda ugu talagasay in jinsiyadooda dib loogu soo celiyo. dadka faraha ku jiraan dad fara badan weey markasta way joogaan waxaan codsanaynaa waqtiga dowladda ay nasis waa waqtiga ayada in laga faa'iideysto. Dhadhaab kalina tagina Gaaris baa looga bixin Madogasa looga bixin Balambala baa looga bixin Burra Ruuqo Masalane Dhadhaab iyo meel kasta wajeerna waa looga bixin. waxaan codsanaynaa dadka Kenyaanka oo faraha ku jira inay iskeenaan. waxaan codsanaynaa mas'uuliyiinta shifafka iyo odayaasha ku jiraan vetting committee inaysan ogolaanin qof aan wadani ahayn in faraha laga bixiyo loo dhawaa Kenyaan. danaha laga soo doortay degmada Faafi oo isna ah mudanayaasha martigeliyay dadka qaxootiga Cabdikariin Cusmaan Rati ayaa waxa uu aaminsan yahay fursadan ay u tahay dadka Kenyaanka ee galay xeryaha qaxootiga Dhadhaab iyo dalkani Kenya guud ahaanba mid ay noloshoodu haatan ku dabaran karaan helidda sharciyada kala duwan ee dalkani Kenya ay tahay mid inta badan dhibaato fara badan ku haysatay dadkaasi. nin walbo kibanda ka maqan yahay oo la dhahay aabaha qaxootiga galeen dowladda qaxootiga gashay hata fursadaas haduu washalayne bisa ayda ina ka faa'iideysano aan soo baxno kulli telefoonka ku haysid nin walba telefoon buuta ninka idara degan wala digatin kii idara degan wala digatin kii gaar degan waa loo sheegay marka waxaan rabnaa warkan asaga inaan isgaarsiino haddaan Soomaalida gobolka degan aannahay ilaa iyo Mandera dad baa leedahay qaxootiga faraha kaga jiraan marka qofkii ma shaqaysan karo kuuda maridi karo haddii aad rabto inaad degan guurta ka qaado waa inaad ka baanaystaa. banaankan oo intooda badan dhalinyaro u badan ayaa waxay noqonayaan mid si rasmi ah haatan ay dib ugu heli doonaan muddo bil ana loo qabtay inay iska diwaan geliyaan xafiisyada kala duwan ee dowladda dhexe ay ku leedahay degmooyinka inta badan dadka qaxootiga ay joogaan gaar ahaan gobolka waqooyiga bari dalka Kenya iyo xarada qaxootiga ee Kakuma Nairobi iyo waliba goobaha kala duwan ee dadka qaxootiga ha isleeyihiin ay ka gaari karaan ay si toos u tagi karaan farahoodana halkaasi looga saari karo kaararka aqoonsiga qaxootimada looga celin karo. sidaasina waxa yiri Dr. Omar mudanaha koonfurta wajeer laga soo doorto oo ka hadlay garoonka kubadda cagta Gaarisa. Soomaaliya kuma baahde baadidii cabarta bahal laga ridaa Soomaaliya haddaanan caban bahal wax ka ridaya male dowladana wax ka dhicinaya male laakiin maanta dowladda heegan waxay u tahay inay garab u ahaato ummadeeda meel kasta ay ka joogto wadankan. annagu waanu ku faraxsanahay in dadkeenni faraha qaxootiga laga bixiyo garab loo noqdo loo gargaaro ummadii ay bulshadii ay ka faa'iideysato taayada
marka waxaan idin leeyahay isa soo xaadiriya isku soo celceliyo qorshahan dawladdu haatan ay hindistay ayaa waxa uu noqon doona qorshihii ugu wanaagsanaa ee dadka Kenyaanka ay dawladda ugu tilaabo qaado in 50 kun dad kor u dhaafayo Kenyaan ah qaxootina noqday haatan dib u heli doonaan aqoonsigooda qaxootinimo iyo xuquuqaha ay ku leeyihiin dalkani Kenya oo 30 sano ku dhawaad ka maqna waxayna u noqonaysaa sidoo kale dadka qaxootiga in qiyaas fara badan oo culays ku hayay oo Kenyaan ah haatan laga dulqaaday Maxamed Faarax Shire VOA Garissa